قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. weli waxaan gudaha ugu sii jirnaa baabkii lagaga hadlayay ee sabirka iyo dulqaadka. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة لقوريي قال أبو هريرة وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك اللي وحيري: من روح يريد الله ربي لدونه به سقب خيرا روح ربي خير لدونه يصب منه والله أصيبانك امتحانه ينبال لقرد الروح لجعل يهي إما في بدنه أو ماله أو محبوبه. أما جركيسي عافماتك لغا قادو عذر لسيو، أما حوليسي وحلقا قدمو، أما خساروين، أما وحو جعلابا نفت لغا قادو ومبعد عدا روح اللي جعل يهيبانا سيدا الله امتحامها وعاروا روح مركا سيدا الله امتحامه يستقون مؤمن يهي اللجوء إلى الله بو سمينا يا ربي بو الله ربي بو النقل بريا بدن عبادة بدن تذلل يتضرع بدن بو بحنايا ربنا وجعل يا انت مؤمنك أدونك يسي مؤمنك وكاركو تنبدافنا ويؤتعي للروح وبني آدم مقفا إله ويانه وقفايا تنبيذو قالي بالغدا فوانو صومرني إلا دباتوينك شدوينك محنوينك حتى الشوكة ونصومرني قضحيكم مدو وحويان ذنوبتا مبالغاقهوبين تنبي داف مباتنك إليسا مركا روح ربي خير لدونو والله أصيبا. أشد الناس بلاء الأنبياء بنصوت المامني ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه. روح وحا الغجر باب سيديسي انت دينتي سودانتهاي دينتي سيادكو أذقياي امتحان كنو سيدرنانا يا ما يريد الله به خير روح ربي خير لدونه يصب منه والله أصيبا. بخاري بحديث كاوريي وضبطوا وحكوكو بإرقا يصب يصب بفتح الصاد وكسرها صاد كل كردبو أما بالله وسطبو يصب لو أقريو أما يصب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنس يا لقوريي قال وحو أنس يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك اللي وحو يري: لا يتمنين يوسن تمنين أحدكم مثكيني الموت غيري لضر دوات درتيت أصابه وأصيبي لبتد درتي سوك وأصيبي
geeriha u tamanin maandhinto ha oran dhibaato ku heshay ama cudur ha noqdo ama cayb ha noqdo dhib kugu dhacay bala ha noqoto faqri ha noqdo baahi badan xanuun badan dartii aada geeri la tamaniso geeriha u tamanin maandhinta ha oran fa in kaana hadduu yahay laabudda waxaan laga fursanaynin faacila inuu sameeyo laabudda inuu geeri tamaniyo unbuu doonayaa hadday sidaa noqoto falyaqul ha yidhaahdo mashiicada alle ha ku xiro ha yidhaahdo allaahuma axyinii allow inooley maa kaanat ilxayaatu hadday noloshuba tahay khayran mid khayr badanoo lii aniga ilaahayo adaa xaqiiqdaydii garanaya geeri iyo nolol waxa ii fiican adaa garanaya noloshu hadday ii fiican tahay ajir iyo wanaag aan ku kororsanaya allow inooleeyo cimriga ii dheeray watawafanii allow i oofso nafta iga qabo idil idaa kaanat ilwafaatu geeriduba hadday tahay dhibashadu hadday ii tahay khayran lii mid ii khayrnimo badan mararka qaarkii waxaa la arkaa inay dhibashaba kuu fiican tahay joogitaankaagii adduunyo dembi mahaane wax kale baadan ku kororsanaynin kaa oo kale waxaa la qaataa inuu dhinto ila dembigu badsanaya kana waxa weeye nolosha u fiican sabirka dulqaadashada dhibaatooyinka uu ku dulqaato ajir badan baa loogu qorayaa marka geeri una iska tamanin dhibaato ku soo heshay sababteedii maandhinto geeriha u tamanin haddaadan waxa weeyaan laga fursan waayeen inaad geeri tamaniso sidaa ku ducayso ilaahayow inooley intay geeriduba khayrii tahay allow idil hadday geeriduba waxa allow inooleydhe intay noloshu khayr ii tahay noloshuba hadday khayr igu jirto allow cimrigiisii ilaahow idiloo i oofso geeridu hadday khayr igu jirto inaan dhinto haddii la qaato ay khayr tahayna allow i oofsadhe xadiiska muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isu wada waafaqay wacan abi cabdillaahi khabaab ibni alarita radia allaahu canhu cabdullaahi aabihiisi baa laga wariyey magaciisi waxaa la oran jiray khabaab ibni alarita khabaab ibni alarita ducafaduu ka mid ahaa sida camaar ibni yaasir weli khabaab wuxuu ahaa nin tumaalah ee biraha tuma ee la liido fuqarada masaakiinta ayuu khabaab ka mid ahaa qaala khabaab wuxuu yidhi shakawnaa waxaan u dacwoonay ilaa rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam dhibaatada nagaga soo gaarta gaalada ayaan u sheeganay oon ugu dacwoonay oo rasuulka alleh sala allahu calayhi wasalam wa huwa isagoo rasuulka alleh mutawasidun ee ku barkanaa isagoo ku barkan burdatan go' lahu isagu lahaa go' uu lahaa buuna ku barkanaa fii dilli lkacbati kacbada harkeedii buuna jiifay rasuulka alleh ayaan u tagnay aan ugu dacwoonaynay dhibaatooyinka oo mushrikiinta aanu kala kulanno isagoo go' lahaa go-iisii uu barkanaa kacbada harkeediina wuu jiifay faqulnaa nebiga ayaan ku niri markaanu u tagnay waxaan nebiga ku niri alaa tastansiru lanaa maad noo gargaartid ilaah gargaar maad noogu weydiisido inuu noo gargaaro alaa tadcuu lanaa ilaah maad noo baridid oo ilaah noo tuugoo dhibkana haysta hanaga qaadee ilaah hanoo gargaare cadowga hanaga gargaaro faqaala wuxuu nebiga ku yidhi qad kaana waxaa ahaaday man qablakum dadka idinkaga horeeyey waxay ahaayeen midkoodii yu'khadu mid la qabto yu'khadu rajulu nin baa lasoo qaban marka lasoo qabto fa yuxfaru lahu fil ardi dhulka waxaa loo qodayaa godka marka loo qodo fa yujcalu fiiha dhulka ayaa la dhexgelinaya barkiisii baa la duugaya inta qof lasoo qabto ee dhulka loo qodo la duugo la aaso barkiisii baa la aasaya ila minshaar baa rabaa maskaxda in lagu kala jaro siduusan u dhaqdhaqaaqino barkiisii baa dhulka la gelinaya uma ka gadal yu'taa waxaa lala imaanaya bilminshaari minshaar baa lala imaanaya
fayuudacu waxaa la dhigayaa minshaarka calaa ra'sii madaxiisii baa la dul saarayaa fayujcalu waxaa la yeelayaa isagii nisbayni laba nis midig iyo bidix baa loo kala bixinaya laba dhan baa loo kala saaraya wayumshatu waa la shanlaynayaa biamshaati alxadiidi shanla bira unbaa lagu shanleeyaa maa duuna laxmi wacadmi waxa la falanqaynayo timo la shanlaynaya maaha maskaxda la kala finjilaya maskaxdan ayaa la shanlaynaya bir fargeetaa wixii la mida ayaa maskaxda la gelinaya hilibkiisa iyo maqaarkiisii baa lagu shanlay ee la kala daadinaya maa yasuduhu daalika can diinihi diintiisa ayaan ka reebaynin waanu soo marnay xadiidu suhaybin baanu ku soo marnayo ninkii jaliiska saaxir ee muxuu jaliis almaliki ahaa ninkii ee raahibka ahaa boqorkii ilaahnimada sheeganayay markuu soo qabtay uu yidhi irjic can diinika kala arkaba diintaadii ka noqo uu diiday ilaa inta minshaar lasoo qaaday bartamaa maskaxdiisii la saaray ee sidaa loo kala jaray ilaa laba dhamba loo kala riday uusan diintiisa ka noqon ladat aliimaani ruuxa markuu dhadhamiyo waa masalo kale arrinka uusan markaa diintiisii war dadkii hore sidaabaa loo dhibaateeyey intaa unbaa la gaarsiiyey ayan diintoodii ka noqon way sabreene macnuhu idinkuna sabra weyaan ee dulqaata kuwa saalixiinta ah hore ku dayda weyaan wallaahi baan ku dhaartay buu suubanuu yidhi layutimana allaahu ilaah wuu taam yeelayaa hada alamra amarka kale oo diinta tan weyaan ilaah wuu taam yeeli doonaa xataa yasiira araakibu qofka musaafirka ilaa uu ka socdo min sancaaa ilaa xadramowt sanca ilaa xadramowt buu u kala socon waxa weyaan dhul markaa cabsi badan jirtay wey gaala unbaa haysatay waqtiga ee dadku isma dhexmari jirin laakiin waxaa la gaari doonaa sanca iyo xadramowt in loo kala socdo ruuxana laa yakhaafu ila allaha uusan ka baqaynin ilaah maahaane mooryaanba halkaa joogtay iyo shuftaa joogtay iyo gaalaa joogtay iyadoon la laheenoo aamina dhulkoo dhan ee dadku isdhexmarayaan ama uu aga baqayo wadi'bayay calaa khanamihi arigiisi ariguu watay amuuyey kaa cuna inuu u baqa waa masalo kale laakiin cid kale aan laga baqaynin ilaah maahaane taa unbaa la gaari doonaa walaakinakum tastacjiluun idinku waa degdegsanaysa bishaare wayan wayna dhacday dheh jasiira alcarab oo dhanba gadaal dambe ee la furtay maka ilaa busra shaam ilaa maka loo kala socdo taa xadramowd iyo sanca waa yamane intaba loo kala socdo iyadoo ilaah maahaane cid kale laga baqaynin wada muslimiin dadku ay yihiin taabaana la gaari doonaa taana waxay tusay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam nebinimadiisa iyadoo gacanku gabad la ahaa aan waxba lahayn buu bishaaradaa siiyey waana la gaaray dheh xadiidka waxaa wariyey imaamu lbukhaari wa fii riwaayatin wa huwa mutawasidun wuxuu barkanaa burdatan go' uu lahaa buu nabigeenii barkanaa waqad laqiinaa khabaab wuxuu yidhi waxaan la kulannay waqad laqiinaa waxaan kala kulannay min almushrikiina mushrikiintu shiddata riwaayo kale wayaan tii hore dhammaystir u tahay shiddo ayaan la kulannay oo aada bay noo dhibeenoo rasuul allow maad noo gargaartidoo ilaah maad noo tugtidoo gaalada allah naga qabteen wacan ibni mascuudin radia allaahu canhu qaal weli baabka sabirka looga hadlayay baan gudaha ugu sii jirnaa cabdulaahi ibnu mascuud baa laga wariyey qaala wuxuu ibnu mascuud yidhi lamaa goor kaana uu ahaa yowmu xunayni maalintii xunayn xunayn waa duulaamada nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu qaaday mid ka mida weyaan bacda fatxi maka maka marka la furtay ka gadaal buudna dagaalkaa dhacay maka waxaa la furtay sanadkii 8aad hijradu markay ahayd ay hadeerna tahay 1441 maadeer noo dhashay sanadka hijriyadu waxay maraysaa 1441 markaana waxay ahayd sanadkii 8aad markuu hijrooday laga joogay ee fatxi maka la furtay dagaalka xunayna wuxuu dhacay bacda fatxi maka markii la furtay sanadka 8aad dhammaadkiisii buu ahaa hawaasin qole la yidhaahdo unbaa lagu duulay hawaasin
qole la yidhaahdo unbaa lagu duulay marka hore muslimiintaa lagu jibiyey dagaalka, laakiin gadaal dambe gaaladaa la jibiyey. khaniimada maalintaa la helay khaniimo ka badan lama yeelan, khaniimo aada u badan, geel iyo lo iyo ari aada u tiro badanba gaalada maalintaa laga qabsaday. asxaabta ducafada ama mu'alafata alquluub dadkii ahaa buu nebiga qaarkoodii boqol halaad buu siiyey, qaarba intaa ka badan la siiyey. maalintaa Xunaynna ciidamada markaa dagaalka gashay aada bay u tiro badnaayeen. ilaa maka marka la furtay 12,000 baa lagu furtay. raggii maka ka soo raacayna soo islaameen, iyaguna way ku darsameen. iyadoo tiro badan ay jirto ayaa markaa dhanka Hawaasin ee Xunayn waadin waxa weeye bayna Makata iyo Carafa, halkaa weeyaane dhulka 2 mayl bay u jirtaa maka, halkaabaa weerarka lagu qaaday. marka maalinta Xunayn muslimiintu aada bay u tiro badnaayeen. markaabay waxay isu mahadiyeenu waxay ku kadsoomeen tiro badnaantoodii. wallaahi waxay yidhahdeen maanta inaan yaraan la noogu adkaanaynin, dad naga badan baan jirin. kalsooni badnaantoodii bay isu mahadiyeen. marka ayaa la fagta hore dagaalka marka la galay muslimiintu way kala firdheen. inta geeda loo fuulay godna iyo laab loo galay baa la wada toogtay. markaa bay wada ordeen. nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam iyo rag yar baa ku soo haray. taa maxay sababisay? waxa sababiyay waxa weeyaan naftoodii bay ku kalsoonaaday, yiraahdeen tad idinkaga badan ba maanta jirin, wala yaraan baan la idinkaga adkaanaynin. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. سورة التوبة. مالنت حنين waxa idin yaabgelisay buu Rabbi yiri badnaantiini baad iskula yaabteen, waxna ma ay tarin buu Rabbi yiri. إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء. وحبا إذن كما ترين بدنانتو للك عرير إذن لنقضيو إساقوا واسعة ميل العقد لكتان بعد قرن ويسينو واذكر فردين ثم وليتم مدبرين بربير لور كد جيد سينو واذ عررتين ثم أنزل الله سكينته كقد الويا مركا قف كيبا الله قرتي ليسو يري مركا بيسو يمادينو تقال كيبا الله قلي Xunayn baa la furtay. marka dambe weeyaan taaba marka laga hadlayo ويوم حنين ayaa marka la tilmaamaya. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال وحيري لما قر كان أها يوم حنين مالنتي حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك اللي وحو كفضل ليس ماذا ناسا ضد في القسمة قيبنتو تذبو بديي وفرس بابك صبر كان قدها وسجرنا قيبنت غنيمة الله لي تذبو بديي تذبى بقول هراد لسيي فأعطى وحو رسولك لسيي نينك لورنجري الأقرع ابن حابس أقرع ابن حابس 100 من الإبل بقول قيل بالسيي. وأعطى النبي وسيي صحابي لورنجري عيينة ابن حسن يساقون مثل ذلك صدو كرب بقول بالسيي. وأعطى النبي وسيي ناسا ضد من أشراف العرب عرب تأشراف تيدين كمذا إيقنا والسيي صدو كرب بقول وآثرهم وفضل ليس ماذا يومئذ ما انت في القسمة قيبنت دذبو كبديي دذنوى الغيريي. فقال رجل نبا وحيري رواية كلا بخاري كسوان رجل من الأنصارين وها من أنصار تكميدة وحيري والله بانكو دارتيو إن هذه قيبنتتني قسمة قيبين ويان ما عدل فيها عدالة الغسمين. قيبنتان نبي قيبيي مد عدالة الغسمين معها لنك سيدا اوها الله مسلم ويان وفرس وركا قال لما ويان لب ويا النبي لدبي صلى الله عليه وسلم. وما أريد فيها وجه الله إلى وجهنا لما جيد إن إنسان كان لقبت بادين أما إن لبت بادين بعلك لقف مايا رسول الله يبسيدا لوتو ما يقف كلام حضم بلين كرتا. والله بوير انتو دارتي قيبنتان لقيبيي عدالة لقوم السمين. وما أريد فيها وجه الله إلى وجهنا لما دونين استطسي وحابها الله بحيي
saxaabigii warkaa maqlayay buu wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi wallaahi baana ku dhaartayoo la ukhbiranna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam warkaad ku hadashay rasuulkan uu sheegaya warka aad tiri nebiga aad ku xamatay aad tiri cadaalo laguma samayn qeybintaa la qeybiyey ilaa wejigiila lama doonin nebigan gaarsiinaya aan u sheegaya marka buu saxaabigaa yidhi faataytuhu nebigaan u imid fa akhbartuhu waan u sheegay bimaa qaala warkaa ninkaa yidhi hebel wuxuu ku yidhi bixinta aad bixisay qeybinta aad qeybisay ilaa inaan cadaalana lagu samayn ilaa wejigiina lala doonin nabigeeni waa bani aadam waxa bani aadamka kaleba dhibo wuu dhibaa fataqayara wajhuhu wejigiisii baa doorsoomay hadalkaa buu dhibsaday xataa kaana waxaadba moodaa wejiga wuxuu noqday ka sirfi isaga kuu macnayn doono sirfigu wuxuu yahay sirfigu rinji gaduudan oo kale wejigiisii baa gaduutay dhibsi uu hadalkaa dhibsaday uma ka gadal qaala nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi faman yacdilu yaa cadaalo samaynayo idaa lam yacdil illaahu warasuuluhu ilaahay rasuulkiisii haddayan cadaalo samayn qofka kale oo cadaalo samayn kara waa keen ilaahay rasuulkiisii haddayan cadaalo samaynin axadka kale oo cadaalo samayn kara waa keen uma ka gadal qaala nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yarxamu allaahu muusaa muuse allah u naxariisto nebi muuse allah u naxariisto qad uudiya waa la dhibay biakthara min hada intan in ka badan baa la dhibay fasabara wuu dulqaatay muuse allah u naxariisto muuse ayuu xasuustay muuse waa la dhibay nebiyaashaaba la dhibi jiray way dulqaadan jireen iyaguna saxaabiga warka soo gudbiyeyba wuxuu yidhi way la xumaatay marka ilan heerkan bay gaaraysaa nebiga sida u murgaayay isma lehen isagu faqultu waxaan iri buu yidhi saxaabiga warka keenay laa jarama waxaa huwanti ah laa jarama ay xaqan waxaa sugan buu yidhi laa arfacu ilayhi bacdaha xadiidan mar dambe inaan war u qaadi doonin tan wayba iga dhacdayoo intaan war kale soo qaado nebiga u geeyo laga maqli maayo faqultu waxaan idhi laa jarama waxaa huwanti ah ay xaqan waxaa sugan laa arfacu inaan koryeelin ilaahay nabiga calayhi salaatu wasalaam xaggiisii bacdaa war kale aan u sheegay ka gadal xadiidan war kale war aan sheego kabaa igu dambeeyuu yidhi muttafaqun calayhi wa qowluhu uu yidhi ka sirfi nabiga wejigiisii baa doorsoomay aanu soo marnay huwa bikasri saadi saadka la hoos dhabo almuhmalati aan dhibic loo samayn dhibicyo haddii loo yeelo saadku daad ama dhibic haddii loo sameeyo daad buu noqon saad aan dhibic loo samayn wa huwa waxa weeyaan sibqu rinji weeyaan axmaru ee gaduudan wejigiisi wuxuu noqday rinji gaduudan oo kale wejigiisii baa doorsoomay وعن أنس بن مالك رضي الله عنه لباب كان قداه قصي جرنا قال وحو أنس يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قال له وحو يري إذا أراد الله إلى هدو لدونه بعبد أدون كيسي خيرا هدو خير لدونه عجل له العقوبة في الدنيا إلى هدو أدون كيسي خير لدونه وحو أددجيا عقاب أددجين الدنيا دون أددجين إساقو سافيا إنو آخرتك لدونه يا تنبيضنا لغوض الجري سقو نظيفة وإذا أراد الله ربي أدو لدونه بعبدي أدون كيسي الشر أشر لدونه أمسك عنه كهيسا بذنبي ذنبي كيسي تنبيقو قلي لغاو فرمايو لغا جريمايو الدنيا دا انتو جوغو مربا سقو كوسا مربا لغاو فين حتى يوافي به يوم القيامة قيامة maalinta adii marka la tago baa loo oofin wuxuu galay oo dhan isagu waxba laga jarin adduunyada aakhira loogu wada jaraya ka waa ka sharta la doonay weeyaan وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحو يري إن عظم الجزاء أوالك وكوين هذا ضربته وحي لسعتا مع عظم البلاء بلد يربك وين هذا intuu dhibkaagu weyn yahay buu awaalkaaguna weyn yahay
waxaanu soo marnay subanayni calayhi salaatu wasalaam qandhadiisii keli waxay ahaan jirtay 2 ruux qandhadoodii la sugeeyeyba keligii la siin jiray limaada ajirkiisii baa laablaaba qof waliba shidadiisa iyo dhibkiisu badan yahay ka kale uu ka badan yahay kaaba ka ajir badan waxaa la isu xiray intay waxa weeye baladu iyo dhibku ay dhan tahay buu ajirkana uu dhan yahay weyaan وإن الله تعالى الله سريي إذا أحب قوما هدو ضجعل ذو ابتلاهم مجربايا وامتحانايا مركا لغو جعل عذاب لغو امتحانايا أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل فمن رضي مركا دقيسو مركا الله يسجربو امتحانك مركا الله يسمرسيهم بدت كان لغو كلا سارايا ruuxa marka raalli noqda imtixaanka allah u keenay uu hogaansama ee ku qanca ee raalli ku noqda falahu ridaa ka wuxuu leeyahay raalli ahaasho isna allah raalli ka noqonay marka maqaadiirta alle aad ku qanacdo adna allah raalli ka noqonay waman sakhita ka caroodana maqaadiirta iyo dhibaatooyinka ku carooda falahu isagana waxa u sugnaaday buu suubanoo yiri as-sukhtu caro isna allah u caroonay maqaadiirta alle ruuxa u carooda isagana allah u carooda ka raalli ka noqdana ilaa ba raalli ka noqonay tirmidhi ba xadiidka wariyay tirmidhi wuxuu yiri xadiidku waa xasan waana saxiix dibban ugu noqonayna وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك اللي وحيري من روح يريد الله ربي لدونه به روحا خيرا خير ربي لدونه يصيب منه والله سيوا إما في بدنه أو ماله أو محبوبه امتحان باجر ويا مركب وضبطوا يصيب بفتح الصاد وكسرها صاد كلا كردو إيا الله هستو ولا وضع الله أقرين كرو يصيب أما يصب وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وحجري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قال وحجري لا يتمنين يوسن تمنين يوسن جعلان وين أحدكم متكيني الموت جيري ما دنتو لضر دبات درتي أصابه وأصيبه دبكو هلي درتي إن الدمشاء يجيري ألا تمني سايلين فإن كان هدوء هذا لابد من أن لقى فرسانين فاعل إنه سمعنا جيري إن دلبتهم بعدوريسا هذا يصير النقطة لقى فرسان وايو فليقل هاي هذا متكيني اللهم أحيني الله إنه لي ما كانت الحياة هذا ينرش بتاعي خيرا لمدي خير بدن هذا يقان وحي إيفي عن إلى هذا ينرل إيفي عن تاين إنه لي هذا يجرد إيفي عن تاين الله يوفصو وتوفني الله يوفصو نفتيق قبو الله يدل إذا كانت الوفاة جرد بعديتهاي خيرا لمدي خير بدن هذا قرر يمدك إيه خير بدن مشي هذا كحر مركا الله كيف يعني وافجب دوران كرتا لكن إذا قوسطو ترادو لبكا إقبتيو عن دنتو الله يدل إنا ترادو تامي لما وقرأ وعن أبي عبد الله خباب بن الأرتة رضي الله عنه قال وحو خباب يري شكونا وندعوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دواتك هذا عن كلاكل النبي النبي ودعوني وهو يسقو متوسد كبر كان بردة قو له يسقو لها في ظل الكعبة كعبة هركيدي منجيفي نبي كان أتقني نقو أدعونينو قال يردب كذبا ودعونيني وحن كنري فقلنا وحن نبي كنري ألا تستنصر لنا بد نو غرغارين انو غرغاروي الى انو نو غرغار بل نو ويتي ألا تدعو لنا ميادن وحوي ألا نو بريينين دبك انو نغا قادو صوبنو قنعي دغدغ بايدن هايو يري إذا صورتان با ليدين كربا دبكنا و تغي دونا فقال وحو صوبنو يري قد وحا دبا كان إنو أهادي من قبلكم إذن كورتيني وحا جري يؤخذ الرجل نمبا لقبانايا مركا الله سوى قبتو فيحفر له في الأرض دلكا الله قضايا مركا الله قضانا فيجعل فيها دلكا لقلينايا والغو آسايا بركيسي
ثم انت صهرتينا يؤتى وحال الإيمانيا بالمنشار منشار فيوضع وحال الدقايا على رأسه مدحيسي فيجعل وحا مدح اللياليا نصفين لببر ولا كرد الله عنايا مركايا لك رجيحايا ويمشط ولا شلينايا بأمشاط الحديث شلبرة ما دون لحمه وعظمه هلبيسي اللفيسي مقاركيسي ولا كلفنجلايا ما يصده ذلك عن دينه أرين كانوا كأوذينين كجيدين دينتيسي وكل مناي والله بان كدار تيبسو منويري ليتمن الله إلى وتاميالي دونا هذا الأمر أمرك كان دين تتني إلى وتاميالي دونا حتى يسير الراكب كمسافر إلى وكسعده من صنعاء وكسعته إلى حضر مدن وسعده لا يخاف يسقون عبسنين إلا الله مهانه وذيب يي على غنم أرجس وأبقوا لواتك لي عبسك لي لما تلقاري دونا من دلائل النبوة ويمر كانوا كله ولكنكم هايش تستعجلون إذن كوا دق سنة إنسان الصبر ويان لبكوا تغايا بخاري بحديث كاوريي وفي رواية وهو متوسد وحو بركنا بردة وقد لقينا وعن كلاكل النيب جرادين من المشركين مشركين تشدة دبان وكلاكل النيو وين الدبانو وانو قرقارتد إلى قرقار نو ويدي إلى نوبريو دبكان قاضو وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال وحويري لما قر كان وها يوم حنين مالنتي حنين دقالك حنين ويان هوازن لفرتي ولقدولي غنيمة بدنا لقهلي آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك اللي وحو كفض لليسيس ماذا ناسا ضد في القسمة قيبينتو تضبع اللوب بدي مالنتا مؤلفة القلوب نها وبدنا دينه تد قلوب تودي للصعود مايي تينت لجعليسين هايي فأعطى وحو نبي قسيي الأقرع ابن حابس إنك لورنجري 100 بقول من الإبل جيلة كمذا سذوك لو أعطى وسيي عيينة ابن حسن مثل ذلك سذوك بقول بايسغن لسيي وأعطى نبي واسيي ناسا تذبوسيي من أشراف العرب كمذا سذا أبو سفيان عرورو دري إيغان بقول وآثرهم وفضلي يومئذ مالنت وكفضلي في القسمة قيبنت تضبطا بالله بدبديي فقال رجل نبا وحيري والله بان كدارتيو إن هذه قيبنتتني قسمة قيبين ويان ما عدل فيها لغو عدالة سمين جوري الظلم لغو فلي ويان وما أريد فيها وجه الله إلى وجهنا لمجدينو استطسي أركتبا وحلو بحيي فقلت وحان يريب ويري نينكا سيدا يريبان كويري والله بان كدارتيو أن لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم وركفوش حناذكو هذا الشيء رسولك أنه شيئا فأتيته وحوري وانصور دي نبي كانوا يميد فأخبرته وانو شيئا بما قال ورككاكو هذلي ويري واقبين الوعد على سمين واقبين إلى وجه للدونين وركب النبي قارسيي إسلام مركابة فتغير وحد دور صومي وجه نبي وجهيسي مركو وركا ومقلي حتى كان وجهيسي وحو نقضي كالصرف رنجي قدودا وكالي ترصوم باكو دعي ثم كقذل قال وحو نبي يري صلى الله عليه وسلم فمن يعدل يا عدال سميني إذا لم يعدل الله ورسوله إلى رسولك سيهدين عدال سمين قفك كلا عدال سمين كرواكي ثم كقذل قال وحو نبي يري يرحم الله أن حريستو موسى ولا الكيجي موسى قد أهدي وهل الربي بأكثر من هذا انت انكبدا عرضي سيبا وحلق الشيغي جركي سيعا في مالكي سيبا وحلق الشيغي وهل الربي دنكستا فصبر ودلقاتي أنوان دلقادا ويان فقلت وحاني ريبو لك ورك سوغوريي لا جرم وحا هو انتئا اي حقا سوغا لا أرفعنا ننكر يلين إليه النبي حقيسي بعدها وركنا أن أشيغي كقذا الحديثا وركلي وقد بين ماي لوات لبسي النبي لبس ذي بوسغنا ولا حنون سدي آد النبي أمر جاي وركع لبي كذال دمبه نبينا عليه الصلاة والسلام وحودر دارمي ورلا إيجا شيغي وهي سوق قارسينين أبو جري
waxaan rabaa anoo qalbi fayoowan inaan idinka dhexbaxo kaabaa ku xantay kaabaa wax kaa sheegay dhibaatay leedahay qalbiga qofka mu'minka wuu dhibsanaya weli waxaadan ahayn marka lagaa sheego waxaadan ahayn marka lagaa sheegay u daran tahay waxa weeyaan anoo qalbi fayow inaan idinkaga dhexbaxan doonaya waxa weye waxba yaan la iisoo gudbin متفق عليه وقوله كالصرف هو بكسر الصاد المهملة صاد له صدو أن دبعنا الله سمين وهو صبغ ورنجي أحمر جذوذا صبغ وجهي سوى سيدا ودور سمي ويان وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس وحويري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك اللي وحويري إذا أراد الله ربي هدو لدونه بعبدي أدون كيسي خيرا وخير لدونه عجل وحود الدجينايا له أدونك العقوبة عقاب في الدنيا عقاب يا حنوني لباتوين أمبا الدنيا لغريدا isagoo markuu dulqaatay way isaguna iskarto uu ku sabro wixii dambi uu galay oo dhan baa lagaga hoobiyaa wayda araada allahu rabbi hadduu doono bicabdi addoonkiisi uu la doono ashara shar uu la doono amsaka canhu wuxuu ka haysan bidembi dembigiisi baa loo qabanaya xataa yuwaafiya bihi yowma alqiyaama ilaa loogu oofiyo isaguba dembiga uu galay qiyaamo marka la tago dembigiisoo dhan baa maalinta la hordhigaya isagoon waxba loo daynin ee dembi dhammaystiran وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحيري إن عظم الجزاء أول كوين كيسي وحو كحران يهي مع عظم البلاء لواتذو انت إلا اكتاي وين كذي انتو لبكو دان يهي ووين يهي بو أول كنا دمانا يا ووينانا يا وإن الله تعالى إذا أحب هدو جعلاذو قوما قلا دد هدو جعلاذو تذكأ ربي جعلاذي ابتلاهم مجربايا ولا امتحانايا فمن رضي روح رالي النقضة كقنع فله حوسقنا ذي الرضا رالي أهاشو إلى برالي كالنقنا يساقنا ومن سخطك عروضنا الرباتذا كعروضا فله يساقنا وحوسقنا ذي السخط عرو إلى بايسنا وعرونا ترمذي باوريي ترمذي وحو حديثك كتل مامي إنو يهي حديث حسن والله أعلم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين